Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaad channelka oo mahad. Adduunka qof walba oo ku nool shilinkiisa nasiibka waa mid gooni ah oo lagama sinna. Inta badan waxaa la dhahaa nasiibka waa lala kulmaa oo waa shay hal mar ama dhowr mar dadka ku soo noqda. Haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa dadka ugu nasiibka badan dunidan qaar ka mid ah. Waxay ahayd maalin aad u qurux badan, cirkuna daruur iyo qorrax isku darsaday. dadkana iska wada shaqaysanayaan. Ninkan aad u jeedina isagoo qudulyoonkiisa ku guda jira oo hal mar ka war helay baraf cirka ka soo dhacay. Laakiin nasiib wanaag wax oo gaaray ma laha ninkan. Barafka noocan ayaa mararka qaar halis geliya diyaaradaha markay hawada ku sugan yihiin. Saad u jeediinba ninkan waa la dhihi karaa waa ninka aad ugu nasiibka badan. Qaybta labaad oo maanta aan fiirinayna ayaa ah telefoon haddii uu ka soo dhaco adiga oo dabaq saaran laga yaabaa inuu badbaado, laakiinse adiga oo joogtid meelaha lagu ciyaaro oo wiishashka orodka badan haddii uu gacantaada hal mar ka baxsada telefoonkaas waa ku daayay. Inta badan meelaha qaar waa ka mamnuuc. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday nin oo adiga wiishkan saaraa ayaa wuxuu dhahay maanta waxaa iska qaadaa sawir, laakiin telefoonkii ka biibay mid ka dambeeyay si nasiib leh gadaal ka qabsaday, wuxuuna ka qaaday sawir lama iloobaan ah. Qaybta saddexaad ayaa ah anaga dhalinyaro haddaan nahay mootadiya baaskiilka zaaid u jecelahay. Haddaba wiil oo baaskiil isaga ciyaaraya ayuu telefoon ka biibay, haddana si nasiib leh uu telefoonkii markuu ugu dhacay sida balooniga camal intuu kor u soo booday oo nin ka dambeeyo mooto saaraa dhabta u soo koray sidii cunugiisa. waa si lama filaan ah. Haddaba nasiib leh waay. weligaa ma kugu dhacday inaad baabuur parking dhigtay sidan oo kale, wax yar ka bacdi markaa soo noqotay aad aragtay asagoo lagaaga fiiqay furo ama mindi? Laakiin tan maanta aan ka hadlayna furana ma ahan, mindina ma ahan, waa madfac ama hoobiye. Haddaba baabuurkan aad u jeedid ma kuu leeyahay baabuur hub culus ku dhacay? Haddaba qaybta xigta ayaa ah anaga bini'aadam haddaan nahay markuu dhib ama rafaad la soo dirsa waxaan isku daynaa si aan uga badbaadno ama waxaan u cararaa dhinaca badbaadada. Laakiin ninkan aad u jeediin birta oo nalka kusoo duntay toos ma hor orday. Hadduu midig ama bidix hor ordi lahaa si fudud uga bixi lahaa, laakiin nasiib wanaag lugihiisa ama orod uu uga baxsaday. qaybta ugu dambeysa ayaa adduunka dowladaha caalamka waxaa mamnuuc ka ah inaad baabuur xawaare ku wadid. Haddaad ku wadidna waa lagu ganaaxa ama se lagaba yaabo inaad naftaada xataa ku waydid. Haddaba baabuurkan wuxuu u waday ninkan si aan caadi ahayn, xawaare adigu ku socday, laakiin nasiib wanaag wuu badbaaday. Haddaad ilaa haddana la soo socotay videogeena maanta halkaasuu ku egyahay, waana mahadsan tahay. hana naga iloobin inaad videogan sii share garaysid, like-na saartid, haddaad kanalka cusub tahayna kusoo biirtid, wixii commenti ana hoos noogu reeb insha Allah. waana mahadsan tahay. aragti dambe oo xiiso leh.